Wargeyska Daily Mail ee dalka UK ayaa qoray in Ilhaan Cumar iyo saygeeda ay ku kala guureen isla markaana ay ku guda jiraan hanaan ay isku furayaan. Daily Mail ayaa warbixin gaar ah oo uu qoray ku sheegay in Ilhaan Cumar ay ceyrisay saygeedii Axmed Xiris oo markii ugu horeysay ay isguursadeen 2002 balse ay kala tageen 2008 ka hor inta aysan mar kale dib isugu noqon. Wargeyska ayaa shaaca ka qaaday in Ilhaan Cumar ay hadda ka guurtay Axmed kuna nooshahay dhisme qaali ah oo ku yaala Mill District oo dhisme qaali ah, waxaana hadda ay Minneapolis ka degan tahay guri aad u qaali ah. Waan ka xumahay, waxba kama oran karo arrintan, ayuu yiri Axmed Xiris oo Daily Mail la hadlayay isla markaana ay weydiisay su'aalo la xiriira kala tagga isaga iyo xaaskiisa Ilhaan Cumar, iyada oo ay xiriir la sameeyeen haddana uma aysan suuragelin wada hadalka ay doonayeen inay la yeeshaan Ilhaan Cumar si ay uga hadasho arrimaha la xiriira ninkeedii ay kala tageen. Tan oo u muuqata kala tag aan dhamaystirnayn ayaa lagu sheegay in Ilhaan Cumar ay u muuqato in dagaal hoose uu kala dhaxeeyo iyada iyo sidoo kale saygeeda Axmed. Maxkamadda ugu sareysa Mareykanka ayaa sheegtay in madaxweyne Donald Trump uu $2.5 bilyan ka isticmaalo sanduuqa Pentagon-ka si uu u dhiso qayb ka mid ah derbiga dhinaca koonfureed ee xadka. Maxkamadda ayaa waxa ay go'aankaasi ku meel marisay 5 cod halka 4na ay diideen, waxaana ay sidaan maxkamaddu ka hor istaagtay xukun uu riday xaakim federaal ah oo ku nool California kaas oo madaxweynaha ka hor istaagay in uu wax qarash ah ku bixiyo dhismaha derbiga kala qaybiya Mareykanka iyo Mexico. Derbigan ayaa ballanqaadkii ugu horeeyay waxa uu sheegay madaxweyne Trump ka hor doorashadiisii, isagoo ballan qaaday in isbedel badan uu sameyn doono. Go'aanka maxkamadda ugu sareysa ay gaartay ayaa waxa uu ka dhigan yahay in lacagta loo isticmaali doono mashaariicda derbiga laga dhisayo gobollada California, Arizona, New Mexico. Maxkamad ku taalla California ayaa waxa ay ku dooday in Koongareeska uusan bixin ogolaanshaha kharashka loo isticmaali doono dhismaha derbiga. Fariin uu u soo dhigay Twitter-ka, Mr. Trump ayaa waxa uu ku xukumay in aan Trump dhisi doonin derbigaas. Maalin kadib markii magaalada Doha ee dalka Qatar loo qaaday dhaawacyo uu ku jiro gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa qaar ka mid ah xubnaha la socda oo ay ku jiraan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda waxay sheegeen in xaaladooda ay soo hagaagayso, welina ay la tacaalayaan dhakhaatiirta dhaawacyada soo gaaray 12 xubnood oo isugu jiray dhaawacyo hore iyo sidoo kale dhaawacyadii qaraxii Arbacadii la soo dhaafay ka dhacay xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir, waxaana la dhigay isbitaalka ugu weyn ee dowladda Hamad General Hospital ee magaalada Doha ee dalka Qatar. Dhaawacyada ayaa 2 qayb loo kala qaybiyay. Qayb dhaawacyada culus ah oo ku jiro gudoomiye Injineer Yariisow ayaa la dhigay qaybta sare ee dhismaha isbitaalka Hamad, halka qaybta kale la dhigay qayb hoose oo dhaawacyada normalka ay yaalaan. Si aad u hesho warar joogto ah iyo sidoo kale muuqaallo ku xiiso geliya, fadlan subscribe saar barteena YouTube-ka ee Dan Wadaag Media. Mahadsanidin.